intii waxaan khiyaaray qodobkeenan maanta waxaynu isku dul taagi doonaa macluumaad ku saabsan mid ka mid ah dalalka ka baxsan qaaradda Yurub ee haddana ilaa iyo waqti xaadirkan dalka Faransiisku si buuxda gacanta ugu hayo. Waa jasiirad ku taala Latin America oo lagu naanayso jasiiraddii ubaxa. Ku soo dhawaada qodobkeena. jasiiradda Martinique waxay ku taallaa badda u dhaxaysa labada qaaradood ee waqooyiga iyo koonfurta America ama Latin America. Waa jasiiradu si buuxda maamulkeedu u hoos tago oo ka mid ah dalka Faransiiska ee qaaradda Yurub ku yaala. Dhulkan waxa uu dalka Faransiiska u jiraa ku dhawaad 9 saacadood oo diyaarad toos ah haddii aad ka raacdo magaalada Paris ilaa aad ka gaadhiso caasimadda waddankaasi ee ku yaala Latin America. Waa jasiirad yar oo ku dhex taalla badweynta Atlantiga iyo biyaha Antil, waxaana dhinaca koonfureed kaga beegan waddanka Dominique, halka dhanka waqooyina uu ka xigo Saint Lucia. jasiiraddani waxay ka mid tahay waddamada ku yaala biyaha la isku yidhaahdo Caribbean-ka, waxaana ay ku fadhidaa ku dhowaad 1,128 kilomitir oo isku wareega. dhanka dhererku waa ilaa iyo 56 kilomitir oo keliya, halka ballaceeduna uu ka yahay 25 kilomitir. caasimadda jasiiraddani waa Port-au-Prince. tirada dadka ku nool waddankanna waxaa lagu qiyaasaa in ay yihiin ku dhowaad 400 oo kun oo ruux. lacagta laga isticmaalaa waa lacagta yuurada, luqadda lagaga hadlaana waa tan waddanka Faransiiska. waa mandaqad horumar la taaban karo ku tallaabsatay, waxaana habka dhismayaasheedu ay u nashqadaysan yihiin qaab dhismeedka magaalooyinka Faransiiska. markaad dhex joogto waddooyinka waddankaasi waxaad u malaysaa inaad joogto qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala waddanka Faransiiska ee qaaradda Yurub. haddii dhanka kale aynu ka eegno, jasiiraddan yar ee ku taalla Latin America waxa ay ka tirsan tahay midowda Yurub. waa mid ka mid ah gobollada Faransiisku mulkiyaddiisa leeyahay ee ka baxsan qaaradda Yurub, kuwaasi oo si buuxda uga taliyo. jasiiradda Martinique waxay horumar ka samaysay dhinacyada isgaarsiinta iyo howlaha kaleba. shacabkuna waxay u xusul duuban yihiin tabcashada beeraha iyo dhaqashada xoolo aan munaafacaadkoodu ka badnayn iyaga. wax soo saarka dhinaca beeraha waxa ugu muhiimsan sonkorta oo ay soo saaraan una dhoofiyaan waddamada dibadda, muuska iyo cananiska. sidoo kale waxaa jasiiraddan ay leedahay meelo si gaara xoolaha loogu xanaaneeyo, inkastoo ay yihiin kuwaasi kuwa aan ka badnayn qoysaska gudaha. dadka ku nool dalkani waa qaar keliya aan isku koobin wax soo saarka dhulka, balse waxaa sidoo kale ay ka faa'iidaysteen badda, waxaana ay soo saareen xaddi kalluun ah oo ka badan 40% wax soo saarka dadka ku nool dalkaasi. jasiiraddan waxaa lagu naanaysaa Madannina oo ka dhigan jasiiraddii ubaxa, waxaanay leedahay dhismayaal aad moodo in la nashqadeeyey iyo hoteelo dalxiiska lagu tamashleeyo, waana ta keentay in sanad walba dalxiisayaashu ay ku soo hirtaan. gacanka magaalada Port-au-Prince waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaaladaasi. caasimadda waddankaasi ee Port-au-Prince waxaa loo bixiyey muddahatan laga joogo 2 qarni, waxaana magacaasi bixiyey imbradoorkii iyo hogaamiyihii military ee Napoleon. 3 meelood oo meel ahaan dadka ku nool jasiiraddani waxaa hooy u ah caasimadda Port-au-Prince, iyadoo oo isku darsatay dhismayaal qurxoon, suuqyo aad ka helayso khudaar kala duwan iyo kalluun caynbacayn ah. marka dhanka waqooyi looga baxo caasimadda waxaa loo gelayaa dhulka kaymaha badan ee dhulbaruhuna uu maro, jooggiisuna sarreeyo. waa meel leh ubaxyo qurux badan, waxaana caan ay ku tahay ceeryaanta isxidhay iyo roobka inta badan ka da'a sanadkii. waa dhulkaymeed ay naftu jeclaysanayso, waxaana laga helaa biyo dhacyo ama shallaalaad ilqabatin leh oo ay inta badan u dalxiisaan dadka waddankani soo booqda. arrimaha cajiibka ah ee kayntani ay leedahay waa geed khatar ku ah nafta aadamaha, waxaana loogu yeedhaa geedkii sunta ahaa, iyadoo lagu xardhay ranji casaan ah si aan markaasi loogu soo dhowaan. dhanka koonfureed ee jasiiraddan waxaa ku yaala deegaanka Bosse-Pointe oo ah magaalo dhacda dhinaca biyaha Antil. waa meesha ugu horreysa ee ay ku soo xidhaan dalxiisayaasha wata maraakiibta tamashlaynta. waa magaalo dalxiiska ku caan ah, isla mar ahaantaasina leh meelo lagu ciyaaro golofta. dadka ku nool jasiiraddani waxay leeyihiin ciyaare dhaqameedyo ay caan ku yihiin oo jaanta iyo cidhibta la isla helayo. waxaabad moodaa mid ka mid a ciyaare dhaqameedyada ay Soomaalidu caanka ku yihiin.
dhulkan waxaa ku yaala dhismayaal fac weyn oo ka turjumaya cahdigii ay bilaabantay wax soo saarka sonkortu waxaana ku taalla warshad qadiimi ah oo ilaa iyo haatan shaqaysa taasi oo aalas sonkorka u beddesha sonkorta aynu isticmaalno deegaankan waxaa weli ka sii muuqda raadka iyo taalooyin lagu xusayo addoonsigii dadka madowga ah ee lagu qasbi jiray inay ka shaqeeyaan beeraha cahdigii kacaankii warshadaha dalkani waxa uu caan ku yahay wax soo saarka farsamada gacanta sida waxyaabaha dhoobada laga sameeyo ee weelka dharyaha iyo farshaxamada dhanka koonfureed dherarka buuruhu waxa ay gaadhaan ilaa iyo 500 mitir meelaha qaarna waxaaba ku yaala buuro dherer ahaan ka badan 1,000 mitir kuwaasoo inta badan daruuruhu ay kor joogaan taariikhdu markii ay ahayd 1902 fulkaanadii ka qaraxday buurtii ugu dheereed ee jasiiraddan ayaa ay ku nafwaayeen dad tiro badan iyadoo oo tii ugu xoogga badnayd ee ka qaraxday caasimadda dalkaasina kuleelkeedii ay ku qurbaxeen in ka badan 30,000 oo ruux hase yeeshee waa deegaan ay jecel yihiin dadka uga soo safra qaaradda Yurub iyo adduunka intiisa kale mandaqadani waxaa biyaha dhexdeeda ku taala buur dheer oo ka dhalatay fulkaano waa hore qaraxday waxaana dhererkeeda lagu qiyaasaa 170 mitir buurtan dhagaxa ahi waxay oogada dhulka u jirtaa ilaa iyo 3 kilomitir iyadoo leh god ay hoos mari karaan laashashka yaryar ee dalxiisku waa goob ay jecel yihiin dadka biyaha hoostiisa quusa kuwaasi oo kala kulma kalluun nashqada fara badan koonfurta fog ee St. Louis waa meel degan oo aan buuq iyo sawaxan toona lahayn waana mid ay maskaxda ku dejiyaan iyagoo ku raaxaysanaya dhawaaqa heesaha shimbiraha ee arladani ku badan Martinique waa jasiirad qurux badan waxaanay ahayd meel ay asal ahaan ku noolaan jireen qabaa'ilkii Hindida ahaa ee Arawak ka hor inta aanay dhulkani helin Isbaanishkii dhuldoonka ahaa ee arladaasi Ameerika gaadhay qarnigii 16aad waxaana markii ugu horeysay jasiiraddan helay badmareenkii Columbus hase yeeshee ilaa bartamihii qarnigii 17aad waxaa dhulkani ka arriminayay dalka Faransiiska